wuxuu la deganaa sodohdii markaas wuxuu arkay sodohdii oo gabadhiisii ku dirasa oo doonaysa ama ninkii iyo gabadhii isku dirasa markaas wuxuu yidhi sodohey kuma dhehina haddaan ku dhihi lahaa buu yidhi reerku dhibaan adiga ahayn ma qaba buu yidhi iminka waxaa uga jeedaa horta dadka reer hiiraan ama dadka xildhibaanka u tahay ama xildhibaanada soomaaliya dhibaan adiga ahayn ma qaban cabdullahi goodax barrow. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinkaga diyaarinay xildhibaanada soomaaliya ama siyaasiyiinta soomaaliya midka ugu isbeddelka badan maantana waxaa baraha bulshadu ay qorayeen xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo warbixin uu ciwaankeeda uga dhigay ku soo qoray page-kiisa oo ah ma jirto khiyaano ka weyn in Fahad iyo Farmaajo in ay dadkaas oo arday Soomaaliyeed ama dhalinyaro Soomaaliyeed loo qaado dalka Eritrea kadibna la geliyay dagaalka Tigreega ayuu ciwaankeeda uga dhigay. laakiin cabdulaahi goodax barre waxa uu moog yahay wixii uu falay ee hore. haddii aynu eegno cabdulaahi goodax barre waxa uu dhowr jeer ka soo noqday wasiir dowladihii hore ee Soomaaliya ama dowladda Xasan Sheekh waxa uu riday xukuumaddii uu ka tirsanaa ee cabdiweli sheekh maxamed taasoo u sababeeyey in wasiirka la siin doono isagoo wasiirka arrimaha gudaha ah. haddana waxa uu sameeyey markii lagu soo dari waayey wasiiradii xilligaasi waxa uu dowladdii Xasan Sheekh ku noqday mucaaradkii ugu adkaa. haddana markii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre la riday ayuu lagu soo dari waayey golihii wasiirada ayuu haddana dowladda mucaarad ku noqday. haddana cabdulaahi goodax barre ma waxa uu moogsan yahay wixii uu falay maanta ma yahay cabdulaahi goodax barre kii hore mise waa cabdulaahi goodax barre aan naqaanay. su-aasha isweydiintoodan waxay tahay cabdulaahi goodax barre mise isbedelaya mise dadka Soomaaliyeed ayaa isbedelaya. cabdulaahi goodax barre waxa uu moog yahay wixii uu ku falay ardayda Soomaaliyeed dowladdii uu ka tirsanaa ee hore ee wasiirkii waxbarashadan u ahaa bal isagoo oo fiirsanaya ama ii sheegay dowladdii uu ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre u doodaya bal in yar aan intaa siiyo ninkaas u dhaqmay. wuxuu goobjoog u yahay wakiilo shabaab oo baarlamaanka soo dhex galay. shabaabku wuxuu rabay in fawdada baarlamaankan ka dhacdo waxaa u sahlay dad sheeganaayo xildhibaanno inay yihiin ficilkooduna uu shabaabka u adeego. waa arkaysaan meesha waxay ka sameeyeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan u sheegayna in wejiyada aad maanta meeshan ku aragteen oo baarlamaanka fawdo dhex keenay aad si fiican haddaa ummadda Soomaaliyeed u barataan. aniga shakhsiyan dadka maanta meeshaas fawdada ka sameeyey ee diiday in baarlamaanka Soomaaliyeed xogaal u noqdo amniga meesha maraayo waa shabaab kana ka mid hadda sii socdo kaasaa ka mid ah la barto waa shabaab waa dad shabaabka u shaqeeyo. ninbaa wuxuu la deganaa sodohdii markaas wuxuu arkay sodohdii oo gabadhiisii ku dirasa oo doonaysa ama ninkii iyo gabadhii isku dirasa markaas wuxuu yidhi sodohey kuma dhehina haddaan ku dhihi lahaa buu yidhi reerku dhibaan adiga ahayn ma qaba buu yidhi. iminka waxaa uga jeedaa horta dadka reer hiiraan ama dadka xildhibaanka u tahay ama xildhibaanada Soomaaliya dhibaan adiga ahayn ma qaban cabdullaahi goodax barrow. waa timi wasiir waxbarashaa lagaa dhigay maxaan kuu sheegay ardayda Soomaaliya baa imtixaan ku riday adiga ardaydaadii waxay iska raaxaysanayaan meesha loo yaqaan Canada. ganacsigaagii waa kuu socdaa South Africa iyo Tanzania iyo Mozambique iyo Nairobi ganacsiga waa kaaga socdaa. maxaan kuu sheegay waa dad gunada qaadanaysaa mushaarka ka qaadanaysaa waa raax balle ku jiraata raax balle ku jira. marka adeerow macaanow horta cabdulaahi goodax barrow xaqiiqda marka laga hadlo horta qofku ma fiicna inuu u shaqaysto dantiisa kaliya. qofku dantiisa kaliya inuu u shaqaysto ma fiicna. dowladdii Xasan Sheekh shalay waa la shaqeynayay markii xilka iga qaaday waa xunta.
dowladda maxaa cabdullaahi farmaajona markii ay xilka iska casishay xilka lagaa qaaday waa xuntaa oo waa xuntaa dowlad walba marka adeer macaane meel laguu raaco horta inaad yeelato qof siyaasi ula baahaya waxaan kaloo kuu sheegayaa horta xildhibaanada hadda soo socda cali guudlaaw loo gudbiyey liiskooda horta kuma jirtid cali dabageed kuma jirtid ku bishaarayso xaqiiqada marka laga hadlo kuma jirtid xildhibaan inaad noqoto dowladda soo socota horta ha sugin liiskaagana kuma jirtid waxaad ku fashay ardaydii soomaaliyeed waa la ogay imtixaanka aad ku riday ardaydii puntland ee intii xildhibaanka aad ka ahayd wasiirka aad ka ahayd saaxaad ku fashay ama waxaad ku samaysay waa la ogyahay ee inaad shahaadada u diiday dabaddana ay aadi kari waayeen waxbarasho u aadi kari waayeen marka cabdullaahi goodax barrow waxaa leeyahay gudo baa dhitaysatay deegaankaagiina wax kamaad qaban maxaan kuu sheegay deegaanka shacabka soomaaliyeedna waxumaad qaban waxaan leeyahay cabdullaahi goodax barrow timahaagu isku dhinaca u xirmeen timahaagu isku dhinaca u xirmayaan ku leeyahay horta marka horeysa maanta farmaajo waa xun yahay markii ardayda markii la qaadayay adaa la joogay maad ka heshay xildhibaan baa wasiirna waad hayday maad ka heshay arday soomaaliyeed ama dhalinyaro soomaaliyeed baa eritrea loo qaadaya maad ka heshay oo aamusnay maanta markii xilka laga qaaday ayaan waxaan samaynayaa mucaarad aan ahay waxaan soo qaraya beydkayga waa farmaajo ifaad waa khiyaamo qarna shalay ma joogin miya adeerow macaanow wax aanu kaa qorno noo sheeg dad weyn baanu nahay ma nihni ciyaal cabdullaahi goodax barrow waxaan ku leeyahay allah ku soo hanuuniyo allah ku soo hanuuniyo ayaan ku leeyahay kaana yeeli mayno xildhibaanada soo socdana taariikhda abid ninkii ra'iisul wasaarihiisii riday abid ee idaacadda la hadlay ila annagaa rinday ee haddana xilkii waaya mucaarad noqday war maxaan siyaadana axmed daaci baa wuxuu yidhi marka laga qaada buu yidhi goodax barre xilka dalki waa burburaya balaayaa dhacday wa markuu xilka hayana dalku waa barwaaqa buu yidhi axmed daaci baa war soo dhameeyey waay axmed daaci baa war soo dhameeyey marka waxaan ku leeyahay adeerow isdeji baan leeyahay isdeji haddana odayaa tahay siyaasad intaa soo cuntay baasabor ajanabi iska haystaa dabadda iska aasaa iska baashaalasaa soo qortay aniga ma taageersani fahad iyo farmaajo shalayna waa taageeris waxaan kaa qoran markaa nooshe maskaxdan wuxuu hashu maankay ka daya maansaar bay liqday buu yidhi shalay farmaajo waa xumaa waa fiicnaa maantana waa xun yahay shalay xasan sheekh waa fiicnaa haddana waa xun yahay maanta mucaarad ma tihid muxaafidna ma tihid maxaan kuu sheegay meel laguu raaco ma laha meel aan kuu raacno ma laha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu adeerkay goodax barre hala gaadhsiiyo ayaa leeyahay hala gaadhsiiyo aan leeyahay waa ku salaamayaa waxaan rashaynaya inaad kusoo laabato siyaasadda saxda inaad fahanto isku day aadaan u mahadsantahay